مشرح محمد عثمان فارح. مشرح محمد قراد محمود. مشرح محمد قراد محمود. waa doorasho qof iyo cod ah si cadaalad ahna u dhacday laguna dooranayay gudoomiyaha midowga ardada iskuulka Gurceel Primary and Secondary School waxaan codeynayay xildhibaano gaaraya 130 xildhibaan musharaxiinta xilkan u kala tartamayay ayaa kala ahaa musharax gudoomiye Maxamed Garaad Maxamuud musharax gudoomiye Maxamed Cabdi Faarax musharax gudoomiye Maxamed Cusmaan Faarax musharax gudoomiye Xasan Cabdullaahi Cabdi waxaan halkaas ugu dambeyn guush ku raacday Maxamed Garaad Maxamuud oo helay codad gaaraya 80 cod sidaasna ku noqday gudoomiyaha cusub ee iskuulka Gurceel 39 xildhibaan baa codeyday waxaana gubtay hal cod mid musharaxiinta codadka ay heleen Maxamed Garaad Maxamuud wuxuu helay 80 cod Maxamed Cabdi Faarax wuxuu helay 26 cod Xasan Cabdullaahi Cabdina wuxuu helay 15 cod halka Maxamed Cusmaan Faarax uu helay 17 cod saa hore in kugu soo sheegay musharaxiinta codeeyay waxay ahay 139 hal cod ayaana gubtay meeshaasna kala bar hadii la yiraahdo kala bar waxa 69 ka badanna waxa helay Maxamed Garaad Maxamuud doorashada marka meeshan waxaan rajeynaa waxaynu ku soo dhamaatay wareegga koowaad waxaana ku soo baxay oo gudoomiyaha rasmiga ah noqday Maxamed Garaad Maxamuud oo ku badiyay 80 cod طبعا ساود أركيدين واحد كده عيترتن قدامي نما وشرحنا أيان عفر مشرح وأنا كمية هاي سيد أنا واحد الله بدي أحمد ديل سكول فميدهم باكبالي مركز سان أركيدين بواحد صوب حي أركيدين محمد جراد محمد وحاليا همبليو نبوة مالين تسالي لكنه عقدوا بحسب قائمين وكلش غيدونا أردنا بعد كذا كسية معنا أنا وقف معنا غصبين وحنا لنا همبليو قدومي هراء إياه كان جدّ دورشة محمد سعيد ومسيهن دورشة أي نقطتين أو قفي عد أو أهمل لغو قنع كرا سياس دراد إنه ما أنت وحنا كنت ترتمي هل كان أفر مشرح أو هراء محمد جراد محمود أنا جو محمد فارح إياه حسن عبد الله عبدي إياه محمد عثمان فارح سياس دراد مركي dhagax la isku dhufto waxa la yiri mid aan baajawa maanta waxa ku guuleystay saaxiibkan gudoomiyihii hore iskuulka ugu horeeyay oo ahaa Maxamed Garaad Maxamuud waan u hambalyeynaa waxaan leenahay hambaliyo waxaan muujinaynaa inaan kula shaqeyn doono mar waliba waa maasan الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وان سلام دمانتين runtii meesha waa meel farxad leh waa meel maanta mudan in laga hadlo saogtiinba maanta waxa meesha noogu soo gabagaboobay oo aan ku qabanay doorashadii gudoomiyaha anu waxa gudoomiye dhacsi hore loo sheegaba marka gudoomiye bedeli lahaa ama lagu doorto maanta runtii farxad ay ruuxay tahay inaan qabto doorasho qof iyo coda ayna noqoto maalinkii ugu horeeyay ee doorasho qof iyo cod ka dhacay meeshan aniga sharafay tahay iskuulka sharafay u tahay dhammaan sharafay noo wada tahay marka runtii waa aad iyo aad ugu mahad celinaya uguna hambalyeynaya guddigii doorashada macallimiintii nagala shaqeeyeen ardada ayaguna sidoo kale nagala shaqeeyeen ugu mahad celinayna sidoo kale waxaan maanta meeshan ugu hambalyeynaya musharaxiintii meeshan ku hirtamay hore waxa loo dhaagaro laba ninkan wada qoslisay hadde ool bixil xilka nima lahayn nima la galbihay ninkii la galbihay ayaa soo baxay محمد جراد محمد وهم همبليين يا قدومي عصب وحنا لا قدومي سودوا أضو معصبت أو هذا كره قدومي هرنا نقص واحد لكن ما أنت تدني قدومي عصب عن نقطي قاب سيستم قب بدلنا قدومي نقول نقطي بره قدومي على همبليو وأقول شغيد دونا لما أنت نقول شغيد دونا صابت أسكوا أنا كادورن وحنا كود دورنا أنا هوش نجوهر كعضو أنا قول عن كادم بينون شغله كله قبنا marka gudoomiye waxaan ku leeyahay hambaliyo marka waxaan sidoo kale u mahad celinayaa musharaxiinta iyaguna sidoo kale meeshan ku tartameen saddexda musharax oo kale waxaan leeyahay waa maasantiin maalna maanta ayaad guuleyso doontaan iska dulqaata waxaan qofba mar way olboolo marka la isla wada guuleysay raga guushan lahay waxaan leeyahay marka la guuleysaydiina marka waa sidaas
marka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. maanta waxaa halkan noogu soo gabagabowday doorashadii gudoomiyihii ardada hogaamin lahay wuxuuna noqday walaalkeen maxamed garaad maxamuud oo ekis jacfar oo ah gudoomiyihii ugu horeeyay iskuulka oo yeeshay wax badanna ka qabtay. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka koowaad, marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka iskuulka Gurceel, marka saddexaad waxaan mahad celinayaa gudoomiyihii hore ee ardada Cabdulqaadir Cali Xuseen oo noqday gudoomiyihii gaarsiiyay doorasho qof iyo cod ah. waa gudoomiyihii ugu horeeyay iskuulkan gaarsiiyo ardada iskuulka doorasho qof iyo cod ah. waa u mahad celinayaa inuu shaqadaas noo ogolaado annaguna aan ka soo baxno. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii nala soo shaqeeyay oo sida quruxda badan noola soo shaqeeyay. waa mahadsantii dadkii ka soo qayb gala macallimiinta sharafta lahaay oo qarash iyo waxyaabihii saas ay nugula baxshay meesha. waa mahadsantiin macallimiintu maanta oo dhan waa taagnaayay, waa daalan yihiin inay xaafidiyada aadaan ay rabaan. sidoo kale ardada xogaa ardada in loo mahad celiyo maadaama ay kuraastoodii si toos u fadhiyeen aamusnaantana nala ilaalsheen. waa ku mahadsantii saaxiibayaal, waa nala shaqaydeen. fasalladii aan u sheegno doorashada oo ayaguna na soo ajiibay, maamulku asaguna ballamiyay ardada galableyda. ardada maanta meesha isku bartay arda waxaa jirta oo galabley oo aan is arkin, dadku waa isbarteen maanta. marka waa mahadsantii doorashada macnaha faa'iidooyinka doorashada ka mid tahay. marka waa mahadsantiin.